marka arrinta aan ka qabo in maxkamadda Kenya ay dalbatay in dib loo celiyo dib loogu dhigo aniga waxaan isleeyahay fikirkii markaan ka hadlo Soomaaliya marna ma ogolo shacabka Soomaaliya in mataqaana maxkamaddaasi dib loo dhigo fikraadayda markii dib loo dhigo waxaan isleeyahay in fursad ay u abuurto Kenya shacabka Soomaaliya aniga oo hadlayo magaalada Muqdisho joogo in maxkamaddaas aan dib loo dhigin in waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo mataqaana kulaha shacabka in aysan maxkamaddaas dib loo dhigo inay ka shaqeeyaan ka shaqeeyaan maxkamadda in waqtiga lagu ballamay iyo mataqaana sida maxkamaddu soo qorto qoraalka in loogu dhaqmo Kenya waxa uu sheegaynaa haddii ay ogaadeen in maanta Soomaaliya ay kala daadsan tahay waxay ogaateen in jiil anagoo kala taa u soo baxay Soomaaliya birina ay imaan doonto maanta awoodda leedihiin in anagu hore u lahaa jirnay maantana dib u soo laaban doono haddaba u jeedin in dib u soo laabanay anaga waxa ku kalsoonahay madaxdeena saas ay tahay hadda waxa inta u taaganahay inaa muujiyo dareenkayga waana lama taabtaan badeena ama dhulkeena meel walba aan joogno arinta madaxdeena say u sheegtay anaga afdabool daad madaxda maxkamadda ICJ waxay soo saarto anagu kalsoonahay waana isku kalsoonahay in baddaas anaga aan leenahay oo dhul Soomaali ay tahay waxaan maqlayay Kenya oo dalbanayso in dib loo dhigo dacwadii badda Soomaaliya haddii aan nahay bahda wax baratay waddankeena qalin lagu ma dhici karo horeyna waxa loo ogaayay inaan xoog lagu dhici karin maantana waxaan cadeynaynaa inaan qalin lagu dhici karin guud ahaan bahda wax barashada waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin sida aan filayo aniga ka maxamed ahaan ila ma ahan in dacwada dib loo dhigi doono waxayna nala tahay Soomaali haddii aan ay dacwadaasi in aan xaqayna ku heli doono magacaygu waa Liibaan dooda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa Kenya ay ku sheeganayso dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan badda Soomaaliyeed sida la sheegay shidaalka uu ka buuxo aad iyo aad aan uga soo horjeednaa waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo intii ay qusayso in ay ka dhiidhiyaan tabar iyo waxa ay awoodaan ay ku bixiyaan dhulka Soomaaliyeed sidii cadawga uga hardin lahaayeen anakana waa garab taaganahay haddii aan nahay ardayda Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka waxaan soo dhaweynaynaa sida ay u socoto dacwadda badda Soomaaliyeed waan ku kalsoonahay xukunka iyo wax ka soo bixi doona maxkamadda CID waxaan ka rajaynayaa beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo cid walba ay qusayso arrintaas in ay si hagar la'aan oo cadaalad ku jirto u qayb qaataan madaxda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa sida ugu fiican oo doorkooda ah inay macnaha maskaxdooda iyo maalkooda ku garab taagaan dhulka Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa maxkamadda adduunka ee cadaaladda inay macnaha Soomaaliya xaqeeda u soo dhicin doonto waan ku kalsoonahay 100% waxaan aaminsanahay casriga hadda lagu jiro wax eexa inuu adduunka ka dhici karo wax walba isla xisaabtan iyo ay yihiin wax lagu kalsoon yahay marka waan ku kalsoonahay waana soo dhaweynaynaa insha Allah